shacbiga degmada gudmo biyacaas ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa si diiran soo dhaweeyay murashaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ku matali doona deegaanadaasi iyo guud ahaanba galbeedka gobolka Sanaag iyo magaalada Ceerigaabo oo ay wehelinayeen mas'uuliyiinta shirkadda Asli Maydi. Soo dhaweyntaasi kadib dadweynaha reer gudmo biyacaas waxa ay cod dheer ku sheegeen inay codka iyo taageerada la barbar taagan yihiin saddexdan murashax ee beesha galbeedka gobolka Sanaag uga sharxan xisbiga kulmiye. Ilanta dhalata waa kulmiye oo dhigana shaa waa kulmiye ninkan inta waa kulmiye ayaa wax wadada xulay cidina mari mayso waxaan dilaala halkan arif madaliid kaga bixi maayo xildhibaanaatiin hadda laga balaabo waa deegaankoodii waa la soo dhaweynaya waa la soo saaraya waa loo doonqaadaya soo baxa anagu aad baan idinka taageerinaa wixii u baahantiin maanta haddaan gudmo biyacaas aad baad u mahadsantihiin waanu idinku soo dhaweynaynaa gudmo biyacaas waxaan idinla socdaa nin qaali ah oo barqa jibril xasan oo ka socda shirkadda Asli Maydi wakiilihii Asli Maydi isaga si gaar ah u salaamayna waxa jira barnaamijyo aan isaga la'aantii fulinba haddana waanu idin haynaa codkii xildhibaanadii isagoo xagar la'aan baad naga helaysaa saddexda codku jeebkiidu ku jira amoodina inaad beedmada halkan badan bay abaabuleyd adinkeedina abaabuleyd kulmiyeeyo abaabuleyd haddana waa idinku soo dhaweynaynaa laba dhaxal isugu tiim maxay wadaagta laba yiraahdo waxaanu idin leenahay gacmo fara ku soo dhawaada gudmo biyacaas baan ayaa intaanu soo jirnayna waxaanu ahay kulmiye nigi gudmiye ka sharaxan ballan baan u qaadnaa waana kaga dhawaynaa waxa iyaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Maxamed Cismaan Liibaan Suldaan Qoor Dheere Boqor Jira Xaaj Xasan siyaasiyiinta Xasan Cabsiye iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka deegaankaasi oo sheegay in beesha galbeedka gobolka Sanaag isku raacdo xildhibaanada waxaanu adiin wadnaa sida la sheegay inagu way soogeeyno waligeemba kulmiyeyno ahay maalin kasta oo soo dhacay anigu halkan kulmiyaan imanayay ragga iyaga badidiisu wax kale oo ka soo baxay ma jiraan sidii inay isaga taageersan tihiin haddana waa idinka muuqata waana idinka mahadnaqaynaa saddexda xildhibaan ee la idin sheegay ayaan idin wadnaa inaad naga guddoontaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa weeye waanu idin soconnaa raggaasaan idin wadnaa waxaan leenahay ka naga qabta maanta wixii ka dambeeya naguma hadlaysaan waa idin kaanay oo idinka codsanayaa saddexdaa nin ee aan idin keennay ee naga guddoonteen insha allahu biidnillaahi kariim kuwii iyagoo calankooda wata oo waxa ay sheegayeen qaban karaya ilaahay indhaha inoo saaro. Dhinacooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay murashaxiinta golaha deegaanka iyo wakiilada uga tartami doona beeshan galbeedka gobolka Sanaag oo mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyay isla markaana halkaasi ka cadiyay waxqabadkooda waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay murashax Saciid Jibriil Xasan iyo Maxamuud Cawaale oo u sharxan golayaasha deegaanka ee degmada Ceerigaabo iyo sidoo kale Axmed Cabdikariin Ducaale oo isagu u sharxan golaha wakiilada hadalka badan ma yaan laakiin waxaan idin sheegayaa reer gudmo oo sidaa isu eega waxaas waa caruur annagu waxaan u qabanaynaa caruurtaasana anigu wax u qabanaya caruurtaa hadda wadda u furo oo albaabada u furo caruurtaasa wax u qabanaya anugu hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad biyihii waynu haysanaa waa sheegteen waa alxamdulilah laakiin mustaqbalka caruurtaa yaryar ma aha inaanu caasimadda iska joogno oo aanu caasimaddu iska tago anugu caruurtan saa u eego dadkan saa u eeg haweenka iyo caruurta samafalka danyarta ayaan wax u qabanayaa haddii aan soo baxo insha allahu tacaala haddaan soo bixi waayna saas uma samafalka uga sii shaqaynaya waxaanu codka maxaan ku ka doonaynaana waxa weeye dadkan bulshada ee halka jooga ee dhalinyaro leh waayeel leh ayaanu codka ka doonaynaa waxaanu doonaynaa inaad nagu doorataan oo nooga codaysaan insha allahu tacaala inaanu wax idin qabanno aanu maxaan ku dhahdaa idin saxanta waxaan qaban karo degmada gudmo biyacaas ay noqoto meesha koowaad aan ka bilaabi doono haddii kursiga fadhiisto horumarka iyo magaraysa qalad waxaan leeyahay gudmo biyacaas way mudan tahay in wax loo qabto waxaan kaloo u mahad celinayaa shirkadda Asli Maydi iyaduna runtii dee wax qabad badan ka samaysan degmada ugu dambeyntiina waxay murashaxiintana dhagax dhigeen saldhig booliis oo degmada gudmo biyacaas ay ka hirgelin doonto shirkadda Jibriil Foundation iyo Asli Maydi waxaana halkaasi ka hadlay murashaxiintaasi xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiirka dakhliga iyo taliyaha booliska Soomaaliland waxaan leenahay marka hore waan kaaga mahad celinayaa taliyaha u soo magacawday saldhigga degmada xukuumaddu wayna aragtaa xisbiguna wuu arkaa dadweynuhuna way arkaan annaga kafaalo qaadanayna
oo u dhisayna iyaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay Cabdirasaaq Warsame Sulub oo ku hadlayay afka shirkadda Asli Maydi taliyaha degmada Gudmo Biyacas ee booliska Yaxya Aadan Sabaysar iyo waayeelka iyo waxgaradka magaaladaasi murashaxiintan iyo shirkadda Asli Maydi uga mahad celiyay waxqabadka ay wada fulinayaan ugu dambeyntiina waxay murashaxiintaasi kormeer ku sameeyeen guriga martida oo dayactir lagu sameyn doono Yoon Sheekh Axmed Star TV Ceeri Gaabo.